Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhowaada asxaabi mar kale iyo muuqaal cusub. Shiishyahan ama geerida qarsoon waa ciidanka aadan marno maqlayn hubkiisa, balse aad arkayso meydka oo u daadanaya midba kan xiga. Shiishyahanku waa tiirka ciidan walba, waana kan aan ka dhex muuqa marnaba. Waxaad arkaysaa asoo isku qarinaya geedaha, buuraha, dhulalka hooseeya iyo meel walba uusan cadowga ku fikiraynin. Dhanka cadowga wuxuu arkayaa ciidankiisa oo midba kan xiga la bartilmaameedsanayo. Awoodda ay u leeyihiin isqarinta ayaa loogu xilsaaray inay ugaarsadaan siyaasiyiinta iyo saraakiisha saameynta leh. Muuqaalkeena waxaa idinkugu soo gudbinaynaa 5 shiishyahan ee ugu khatarsanaa Carabta taariikhdan casriga ah. Waxaynu ku bilaabeynaa shiishyahankii Toga Xaramka, Thaa'ir Kaayid. Dadka qaarna waxay ku naanaysaan shiishyahankii Toga Xaramka. Sidoo kale waxaa loogu magac daray Amiirka Shuhadada Aqsa. Ciidanka gaarka ee Israa'iil ayaa dil qorshaysan ku khaarijiyay abtigiis Nabiil Xamaada sanadii 1991. Caradii uu ka qaaday ayuu soo iibsaday qori qiimo ahaan gaaraya 1300 oo diinaarka Urdun ah, iyadoo ay la socoto ku dhowaad 350 rasaas ah. Qorigiisa ayuu ku bilaabay tababar shakhsi ah oo dhanka shiishka ah. Kadib fulintii howlgalkiisa waxa uu toogasho ku dilay 11 askari oo Israa'iil ah, isagoo dhaawacay 9 kale. Bartilmaameedyo meel fog ah isagoo adeegsanaya qorigiisa M1 ee Mareykanka ee uu soo saaray sanadihii dagaalkii koowaad ee dunida. Intii uu socdo howlgalkiisa waxa uu isticmaalay 25 xabo oo toos ah, kaasoo uu xamili waayay qorigiisa in la farsameeyay waqtiyadii hore. Kadibna waxa uu ku sameeyay qarax mar uu ku jiray howlgalkii loogu magac daray Isha Xaramka, kaasoo ka dhacay wadada u dhaxaysa labada magaalo ee Ramallah iyo Nablus. Waxaana gacanta lagu dhigay 30 bil kadib howlgalkiisa, isagoo lagu xukumay 11 sano oo xabsi ciidan ah. Waxayna xabsiga ku kulmeen hogaamiyihii kooxihii wax iska caabinta ee Filistiin, Marwan Barghouti, kaasoo ugu magac daray Amiirka Katiibada Shuhada al-Aqsa ee Filistiin. Waxaa ku xiga shiishyahankii 6 Oktoobar, Cabdirasaaq Nasrudiin Shaxaata, oo ku magac dheeraa ugaarsadihii guutada 3aad ee Masar. Waxa uu ka qayb galay dagaalkii Oktoobar. Waxa uu ahaa mid ugaarsada militariga Israa'iil sida ciyaaraha video gameska. Waxa uu ka toogto tobaneeyo, halka uu ka dhaawac tobaneeyo kale oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo ka tirsan militariga Israa'iil. Raggii uu toogtay waxaa ka mid ahaa wiilkii taliyihii militariga Israa'iil ee waqtiga markii dambena noqday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Ariel Sharon. Dagaalkii Oktoobar 1973 keliya waxaa gacantiisa ku baxay 16 askari oo ka tirsan militariga Israa'iil, waxa uuna dhaawacay 21 kale. Mar waxaa la sheegay inay ogaadhiisu ka mid noqday isla Ariel Sharon oo ahaa taliyihii militariga Israa'iil markii dambena noqday ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Waxa uuna awooday inuu khaarijiyo haddii uusan ka hor istaagi lahayn taliyihii ka sarreeyay xilliga oo isagaba ilaalinayay go'aankii xabad joojinta ee galeen Masar iyo Israa'iil. Waxaa ku xiga ugaarsadihii shiishyahanada Axmed Anwar, kaasoo loogu magac daray ugaarsadaha shiishyahanada. Waxayna militariga Masar u xil saareen howlgalkii ugu adkaa intii uu socday dagaalkii Toga Berliif. Sida caadiga ah, shiishyahanku waxay muhiimadiisa tahay toogashada ciidamada ka soo horjeeda iyo inuu yareeyo iska caabinta ay la kulmi karaan ciidankiisa. Laakiin Axmed waa ka duwanaa howlgalkiisa si dhammaystiran. Waxaa loo xir saaray ugaarsiga shiishyahanada cadowga, waana shaqada ugu adag inta uu dagaal socdo. Shiishyahanadu sida caadiga ah waa kuwo isqarin badan, waxayna adeegsadaan dhammaan farsamooyinka isqarinta si ay wax u ugaarsadaan. Laakiin Axmed waxa uu si fiican u garanayay dhammaan xeeladaha isqarinta. Waxa uu u ugaarsanayay shiishyahanada cadowga midba kan xiga ilaa uu ka dilay 15 shiishyahan, taasoo ah tiro aan la dhayalsan karin. Sababtoo ah dagaal gudihiisa waxaa lagu qaataa bilad geesinimo ah in aad hal shiishyahan disho. Laakiin Axmed howlgalkiisa waxa uu u fuliyay si mucjiso ah, taasoo noqotay taariikh la diiwaan geliyay. Waxaa ku xiga ugaarsadihii Daacish Cali Jihaad Cubeyda. Waxaa kaloo shacabka Ciraaq ay ugu magac dareen Shiiqa Shiishyahanada. Waa shiishyahan Ciraaqi ah, kana mid ahaa militariga Ciraaq. Waxa uu naftiisa u hibeeyay xoogagii ka qayb qaatay dagaaladii Ciraaq ee loogu xireynayay Daacish sanadii 2014. Waxa uu ka qayb galay dagaalo fara badan oo ay ugu horeyso dagaaladii ka dhacay buuraha Golan Heights
oo ay haysato Israa'iil sanadii 1973 xilli uu ka mid ahaa milatarigii hore ee Ciraaq. waxa uu ka qayb galay dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan iyo kii Kuwait lagu qabsaday, balse hibadiisa waxay bannaanka timid dagaaladii milatariga Ciraaq ee la galeen Daacish, kuwaasoo loogu xoreynaya dhul badan oo ka tirsan Ciraaq, isagoo ku caan baxay toogashada iyo ugaarsiga hogaamiyaashooda ilaa ay gaartay tiradii uu ka dilay ururka markii lagu daro kuwa hubka u sida in ka badan 350 dagaalame. sanadii 1972 wuxuu ka mid ahaa ciidamadii Ciraaq ee tababarka shiishka loogu qaaday wadanka Belarus oo markaa ka tirsanaa midowga Soviet. waxa uu ka galay kaalinta labaad dhammaan raggii tababarka loo qaaday oo ka kala yimid daafaha dunida. waxa uuna geeriyooday sanadii 2017 intii uu socday howlgalkii xoreynta deegaanka Xawiija ee lagu qaaday ururka Daacish. kaalinta koowaad waxaa ku jira shiishahanada Carabta oo xitaa loo aqoonsan yahay in uu yahay kan ugu khatarsan taariikhdan casriga ah ee dunida oo idil, oo ay xitaa shirkadda Hollywood ka aliftay filimo ka sheekeynaya qisada geesinimadiisa. waa halyeegii reer Ciraaq ee muslimka ahaa Jubba, shiishahankii Baghdad, kaasoo argagax ku riday ciidamada Mareykanka. ninkan ku caan baxay halka baalooto oo keliya shiishahanka ugu khatarsan taariikhda aadanaha. Mareykanka waxa uu ka dilay in ka badan 600 oo askari kadib qabsashadii Mareykanka ee Ciraaq. Jubba waxa uu ku biiray kooxihii wax iska cabinta ee Ciraaq kadib riditaankii nidaamkii Saddam Hussein iyo qabsashadii Ciraaq sanadii 2003. waxaa gacantiisa ku baxday inta la xaqiijiyay in ka badan 640 askari oo Mareykan ah, waxa uuna dhaawacay ku dhawaad 200 oo kale intii u dhaxaysay sanadihii 2004 ilaa 2009. waxay u bixiyeen ciidamadii Mareykanka Jubba, oo markii la fasiro micno ahaan noqonaysa dhaqdhaqaaqa ugu dambeeya uu qofku sameeyay xilliga geerida. waxaa loo diray guuto ka tirsan Mariniska Mareykanka inay nolol ama geeri ku keenaan, hal ka mid ahna nolol kuma uusan soo noqon. keliya waxaa la helay warqad ku jirta jeebka taliyihii guutada oo ay ku qorneed Jubba ayaa halkan maray. ilaa waqti xaadirkan lama hayo magaca iyo sawirka rasmiga ah ee Jubba kadib shaacintii warkii dhimashadiisa gudaha mid ka mid ah xabsiyada Mareykanka ee Ciraaq, balse warbixino sirdoon ayaa xaqiijinaya inaan xogta rasmiga ah ee geerida Jubba iyo cidda sida saxda u sababsaday aanan la haynin. ilaa iyo waqti xaadirkan caalami ahaan waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay shiishahankii ugu khatarta badnaa ee taariikhda aadanaha soo mara.